magacayga waa Axmed waxaan ka shaqeeyaa maxkamadda gobolka waxaan kaga shaqeeyaa translator iyo interpreter labadaba maalin oo shaqada ku jiray waxa ii yimid maamulaha shaqaalaha oo iga codsaday inaan bal arintan xaliyo gabdho Soomaali ah la soo dacweeyay oo loo haysto kiradii guryaha marka waa laba gabdhood Soomaali ah ninkii dacweynayay baa guriga lahaa oo ii sheegay landlordka ahaa ama mulkiilaha ayaa la socdo oo wuxuu leeyahay 6 bilood 7 bilood kira la imasiin marka dhibka jirana wuxuu ahaa sidoo u dhacayba caabuqan la yiraahdo COVID-19 xafiis walba waa la xiray meelihii laga bixin jiray kirada iyagana shaqaalihii ba ku yaraaday gabdhihii iyagana ma yaqaanaan qof ka caawinayna ma jiro marka dhibka jirana wuxuu ahaa amaan ogaaday iyagoo lacagtii kirada haysta oo ay garan waayeen meeshii ay geyn lahaayeen lacagtii marka waxa isku dhacaya dadkii kireystayaasha ahaa ama tenantska ama mulkiilayaashii ama landlordska marka qaladka waxa keenay ma aha dadka guryaha leh iyo mulkiilayaashaba qaladka waxa keenay cudurkan hadda aan ka sheekeyno caabuqa COVID-19 la yiraahdo oo dadkii kala go'doomiyay marka waxaan kale oo aan arkay qofkii lacagtii waan bixiyay oo haddana lacagtiina milkiilihii uu leeyahay ima soo gaarin sababtuna waxa weeye meeshii lagu ridi lahaa ma ahan meel kale oo khaldan bay ku rideen ama godadkii lagu kala riday dadkii ka caawin lahaa xafiisadana ma joogaan oo shaqaalihiiba waa la yareeyay ama dadka inay ka caawin jiray maba joogaanba marka ilaa ay haddana wax la xaliyay ma jiraan wayna soo badanayaan marka waxaan wacay Somali community-ga jaaliyada dhibkii jiray baan u sheegay waxaan la xiriiriyay Somali community-ga la xiriirnaa anigoo weydiinay dhibaatooyinkaas iyo sidii loo xalin lahaa sidaas ay maartay ayuuna sidaas ayaan halkan u imid Somali community si aan u weydiiyo halkaas iyo dhibaatooyinkaas jira sidii loo xalin lahaa marka halkiina waan ku jirnaa insha Allah wax walba waxay noqonayaan caadi hadii ilaa